dhageystayaal ku soo dhawaada sheekadii Maryan Adeegto oo isbuuciiba 4 mar aad ka dhageysan doontaan Radio Horn Africa. marka hore aan si kooban idinkula wadaago hordhaca sheekada. Adeegto ama Booyeeso waa qiso ku saabsan gabar markii hore ahayd reer baadiye markii xigayna magaalo soo gashay. qisadu waa nolosha gabadha markasta way dulmaneed aan ahayn markii ugu dambeysay ama qaybtii dambe ee nolosheeda taas oo cid alla baxshay nin ay mahadisayna haleeshay ugu dambeyn. waa mid aynu wada ognahay nolosha gabar rajo ah oo baadiye ay aayadeed madax ka tahay raacda. waxaynu kaloo ogsoonahay qofka adeegto booyeeso ama jaariyad la yiraahdaana sida ay u nooshahay. midda kaloon si fiican u wada naqaana waa dhaqamada aynu leenahay ee la xiriira dhanka guurka ama waxa lagu magacaabo isgeyida. haddaba dhageystayaal aan markan toos u gudagalno qaybta labaad ee sheekada Adeegto. Maryan waxay la nooleed aabaheed iyo aayadeed oo iyadu sinaba aan u jeclayn. Maryan hooyadeed waqti hore ayaa aabaheed furay kadib markay iyada oo kaliya dhashay ilaa iyo markaasina Maryan may aqoon meel hooyadeed adduunyada kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteedaba. Maryan waxay u go'oneed oo ay raaci jirtay ari aan tiro yarayn oo iyada iyo riyaba leh. wax dhiiqa ma lahayn arigaas hadduu yeeshana iyada awood umay lahayn inay maasho nafteedana uga faa'iidaysato. hawsha ariga iyadaa iska lahayd munaafacaadkiisana aayadeed iyo ilmay dhashay iyagoo aan warhayn hadba wixii la siiyo iska cuna. laga yaabaa in Maryan ariga caano ka dhadhamiso waase hal mar oo keliya marka dadka intiisa kala sanka ka soo celiyaan. waxaa intaasii dheeraa wakhtigii markaas la joogay arigu wax irmaan ah ma lahayn oo waxa uu lahaa oo keliya dhib iyo rafaad hilib caata ah iyo harag aan ninna rabin. Maryan iyadoo waxaas oo dhibaato ahi haystaan ayayna haddana ku nabadgeli jirin. cawo iyo maalin waxay ahayd mid dil xaarxaaro habaar hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadoon waxba dhiqin xoolana aan war u hayn had iyo goorba gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsata. Maryan dhibaatada culus ee joogtada ah darteed ayay inta baydaday ama fiigtay wixii la hadlaaba waxay moodaysaa inay dilayaan. masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd oogadeeda nabarta ku taal way tiro beeleen. aabaheed waa iska dhagweyn aan sidaas wax u danayn. marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisa oo si xun u rifaysa arko xaarxaariyo kana qabto. inta badanse wuxuu u qaataa dilista Maryan la dilayo inay tahay lax jeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo. Maryan ama hala dilo ama halala hadlee ma hadasho maxaa yeelay cid ka guraysaanba jirin. deegaankay ku noolayd aadka cadowga u ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaarad ahoo aan sidaas wax u gelin aan nixin qoslin farxin hadallada dadkuna aan sidaas u danayn maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay. aayadeed waxay aad u tiqiin tirada iyo suuradinta ariga taasooy mar walba markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weydiin. galabtii dambe ayaa waxaa dhacday in gooray makhrib ahayd arigiina soo xeroonayo aayadii ay towday orgigii keli ahaa ee ariga ku jiray. aayadii dhowr jeer ayay aad ugu noqnoqotay indhayntiisa waxay ogaatay in orgigaasi maqan yahay. mid shaki ku jirta ma ahayn in marba neef isha sidaasi loogu wadahayay hadduu maqan yahay la xaday. Maryan oo horeyba u towsaneed orgigaas halgaadada ku imaan doontana horay ugu soo talagashay ayaa aragtay in aayadee towday orgigii. wakhtigu markaas waa habeen makhrib himhimow ah ariyowgii xaroodeen geelashiina soo dheelmad habqamayaan. waxaa iyana cidaha kuurka u wada fadhiya libaaxyadii dadqaadka ahaayee meelahaasi wax ka jeeqaaqaya. aabaheed ama odaygii reerku wuxuu weli ku maqnaa soo dheelanka hala dhowr ah iyo gaadiidkii cidda.
maryan aragtay in lagu soo socdo aayadeedna iyadoo tib weyn sidata ay soo malabsanayso. way talantay oo ay istiri maxaad yeeshaa, labada dhanba u daran oo hadday sugtana tibtaas ayaa meel ka waayaysaa, hadday carartana waxaa ka horeeya waa libaax iyo dugaag aan u daahayn. waa markii ugu horraysay oo hadal nooli maryan afkeeda ka soo yeera, iyadoo tidhi walle caawa midhaa ima dishid saan kuguma sugayee, dilkaagana waxaan ka doortay libaax cuniddii, maxaa yeelay haddaan mar horeba libaax isa siin lahaa intii horay nafteeda dhibaato u aragtay uma aragteen. maryan hadalkaa markay lahayd way sii ordaysay iyadoo aayadeed tib ka daba sidato. maryan ayaa dheeraysay, aayadu intii horoo dhan ma rumaysan ilaa ay dhaqdhaqaaqa dambe ka weyday. tibteedii bay inta dib ula soo laabatay iyadoo weli hiif iyo habaarkii wadda, arigii dibadda joogay soo xaraysay. goobtaasi waxaa isugu soo haray aayadii, arigii iyo dhowr carruuray dhashay. cabbaar ayay sugtay iyadoo aad uga rajo qabta maryan soo noqoshadeeda. saacado ayaa tegey, wax sharqan ah ma leh. mar dambe ayaa waxaa soo yeeray geela shanqadhiisa, waxaana waday odaygii iyo wiil uu naag kale ka dhalay oo maryan ka yar, hooyadiisana la furay isagoon dhalan. aayadii intay faraxday bay istiri malaha maryan geela ayay la imaan doontaa. geelii soo xero, aayadii waa indhaysay ma isa arag maryan. odaygii markuu geela xerada ku hubsaday ayuu xirxiriddeedii wiilkii u dhaafay, isagoo kab ka go'day laadlaadsanaya, sinna u dhutinaya. wuxuu isku soo tuuray ardaagii aqalka oon sidaas u gogol iyo kashkash wacnayn, gelgelin u eg. waaba daalaye sidee loo degay, naabal wax igu soo qabo haddaad haysid, ayuu hadal ka yidhi. reerku biyo sidaasii ma haysto, waxaa u sii daba leh qaroor haan gunteeda ku jira. biyaha aad baa loo tashiishaa, sida badanna waa laga soomaa iyadoo loo baahan yahay. sababtu waa meesha la joogo oo iyadu oomana ah, ceelashuna aad u dheer yihiin. dhaanku 4 ama 5 ayuu dhaxaa. aayadii oo dhan orgigii ka ciil qabta, dhanna maryan cararkeedii ka ciil qabta, sinna u qaadan la, dhan kalena ee yamxeerinayso biyola'aanta ayaa inta si kulul hadal tufaya ku jirta waxay u tidhi walle ama daal ama daayo, orgigii keli ahaaye reer ku lahaa caawo waa maqan yahay. biyana u malayn maayo in goror uu ku haray haantaas baas. intii hadalkii la hayay ayaa inankii reerkuna ardaagii soo fadhiistay. aayadii oo markii hore u hinqatay inay balhaanta soo qarooriso ayaa markay inankii aragtay ka hakatay hawshaa iyada ah. odaygii ayaa yidhi yaab, naama orgigii weynaa mise waabad igu ciyaaraysaa, waad arki doontaa haddaan kugu ciyaarayo iyo haddii kaleba. xaaskii oo si u neeftuuraysa ayaa tidhi meeday tii baase ariga la raacshay. odaygii baa isagoo si u xanaaqsan yidhi. su'aashaas markay timid ayaa xaaskii dhan ka xanaaqday oo istiri haddaad inay carartay sheegtid armaa qayladu daluuntaa. dhan kalena istiri maryan ku sii buuxi si adiga doodu kaaga wareegto. waxayna tidhi iyadoo hadalkeedii laga dareemayo inay been sheegayso ma aqaan hadda meeshay taagneede, bal u yeera idinkay idin maqlaysaaye. inanka oo aad u yaqaan dabciga iyo dhaqanka reerka ayaa waxa uu kala saari waayey in maryan ama inta si xun loo dilay ay meelahaas taal oo ay ka cila'dahay dhaawac dartii, ama ay carartay oo ay meelahaasii dugaag marti u tahay. ha yeeshee isaga ma uu hadlin oo waxa uu ka dhursugay bal waxa odayga ka yidhaahdo ama ka yeelo. odaygii oo isna naxsan ayaa inta kacay yidhi miyaad ceyrisay oo dishay gabadha, miyaadan ogayn in meesha bahal dadqaad ihi ciddii ka batay. intiibana ma sii joogsane intuu jiitimihii iska sii rogrogay ayuu qaylo bilaabay oo uu ugu yeerayo maryan hadday bal meelahan ku naban tahay oo ay maqlayso. maryaney, maryan, aabba waa anigiiyo kaale, anaa kaa ballanqaadayo inaan caawa kadib lagu diline. xaaskii markay maqashay bahallo dadqaad ah ayaa meesha ka buuxaa beeyaro naxday oo inta wax istustay qowmamaysay waxay samayn jirtay amay fiidkanba samaysay.
iyadu kama naxayn Maryan dhimashadeeda iyo haddii bahal cunee waxay aad uga naxsaneed hawsha ku soo fakan doonta arigii raacidiisa haddii Maryan meesha ka baxdo qowmamay dibnaha qaniintay iyadoo isleh walle haddii la waayo oo libaax cuno anna hawl aanan u baran cuntay ilmihii yaryaraa oo iyagu aan warhayn ayaa iyagoo hilba caata ah casho loo siiyey hiighiigaya waxay soo ag fariisteen walaalkoodii weynaa oo ardaagii fadhiyey ilmaha iyagu waa dadka ugu ladan reerka waxayna ku caynteen waxaa loo lisaa dhowr halaadoo dhaqaya sidaasna u caano badnayn odaygii wuxuu qaylqayliyaba wuu quustay ugu dambayntii isaga naftiisa libaax ka baqayey markuu meelaha wax ka daydayay wuxuu sitay qori uusan sida badanba dhigin si uu isugu difaaco haddii bahal soo weeraro wuu soo laabtay oodihii inta soo adkeeyey ayuu ma fariisane wuxuu Maryan ka baaray xeryaha xoolaha iyo hareeraha reerka oo dhan waxba waa hadba dhan eeg madax ruux wax uu yeelana garan waa mar buu is yiri xaaska ma garaacdaa maadaama ay iyadu sabab u tahay waxa dhacay haddana wuxuu deystay inuu inta xaarxaariyo uuna far saarin maxaa yeelay laga yaabaa inay dhibaatadu meeshii hadda joogto meel ka xun tagtay intuu iska soo fariistay buu yiri adaa toleye ka tali waxay ila tahay reerka gabadhiisii adiga unbaa yaqaan meeshaad ka keeni lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguna haystaa xaaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meelay wax ka tiraahda weyday wax kastaabase waxa uga sii daran maskaxdeeduna qaadan la beri yaa ariga raaci doonaa in cabaar ah ayaa la isla hadli waayey wax la yiraahdana la garan waayey la arag arrintu inay meel aad u xun taagan tahay xaaskii hadalkii ama taladii inta ka kala firdheen bay dhamba joogi la'dahay way garwaaqsiisaneed inay dembi gashay inkastoo qof kibir iyo talo xumo u geysay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la oran karo way ka soo wareegeen intii indhaha la iska eegayay maskaxdana laga wada fikirsiinayay ayaa xaaskii iyadoo moodo inay daal ama jirro la kiciladahay inta istaagtay gurigii gashay waxay odaygii iyo wiilkii soo hordhigtay xeero qori ahoo hilbo caata ah oo soloni ku jiraan wax hadal ihi kama soo yeerin afkeeda ee intay sidii kubad la soo laaday dhulka xeeradii ku soo taraarixisay bay isaga hartay odaygii isagoon hadlayn ayuu inta dhowr tagaarood ka walamsiiyey qorigiisii oo xabada dhuunta u yaaliinna inta la soo fariistay isagoo salka dhulka ku haya iska hamiyey xaaskii intay ilmihii oo meelaha kala daasan gurigii gudihiisa u daadguraysay bay iska dhex seexatay meeshaas hadalka aad buu u yaraa dhammaan waxaa loo wada muuqday dad isu wada cadow ah iswada nacab faylaha iswada jaraya haddaba dhegaystayaal Maryan xaalkeedii intuu ku dambeeyey dib miyay ugu soo laabatay ardaagii mise meelahaasi ayuu dugaa ku cunay waxay intaasi ku dhan qaybtii koobaad ee sheekadii la magac baxday adeegto intaan ku kulmi doona qaybtii xigta waa anigoo Liibaan Xasan oo idinkaga tagaya sidaasi ee nabadgelyo